arintii gabadha guriga mas'uulka ka ahayd ama lahayd iyadoo ku wareersan tahay dadkan maxay dadkan oo dhan u dileen maxay guriga u dhaxaaseen dadkii sirdoonka ahaana ay ku fikirayaan dilkan dadkii guriga ka guuray ayaa digeystay mise gabadha waxbay ka og tahay mise qofkan shaqaalaha ayaa wax ka og arintii aad iyo aad ayaa lagu wareeray in badan bay iska soo dawajiitantay heer waxaa la gaaray dadkii in meel lagu sheegi waayo meel laga raadraacana la waayo nasiib wanaag maalmaha ka mid ah waxaa dhacday gabadhii guriga mas'uulka ka ahayd ayaa telefoon box laga soo garaacay ama laga soo wacay way qabatay markay qabatay waxa lagu dhahay dilalka guriga ka dhici jiray waxaan ahay qofka geysan jiray waana lagu jaray iyadoo yaaban oo hadalkan dilaaga asiga afkiis ka qiranay qofku uu yahay meesha uu ka soo hadlay iyadan war u hin ay askartii markiiba wacday waxay dhahday lambarkaas ayaa laga soo wacay waxaana lagu dhahay dilka guriga ka dhici jiray waxaan ahay qofka geysan jiray waana lagu dambi telefoonkii lambarkii bay u sheegtay askartii waxay sameeyeen raadraac markay raadraac sameeyeen waxaa ka soo baxday arin la yaab leh arintaasoo ah bokoska laga soo wacay gabadhaas wuxuu ku yaalaa saldhigga sirdoonka agtiisa marka arintii waxay la noqotay arin aad iyo aad murugo iyo mushkilad iyo ciriiri u ah meel ay ka maraan ay waayeen sirdoonka si ay u xaliyaan ama ay soo saaraan ay waayeen waxay tageen bokoskii markay tageen waxay baaritaan ku sameeyeen bokoska gacantiisa faraha ka soo baxay laakiin nasiib daro qofka ka soo garaacay bokoskaas wuxuu ku xisaabtamay inaysan farihiisa meesha ka soo bixin oo golofis ayuu xirnaa siisan farihiisa meesha ugu soo bixin arintii askarta wareer badan ay ku noqotay gabadha guriga mas'uuliyadka ahaydna sidoo kale mushkilad iyo ciriiri ay ku noqotay ninka shaqaalaha ahna shakiga waa laga qabaa askartina arintii inay xaliyaan ciriiri ay ku noqotay marka arintiisa isku daba taagneed waxaa loo wacay nin gobol Mareykanka ka mid ah joogo oo sirdoon qabiir ah laakiin howlgab ah oo waqti hore shaqada ka fariistay ninkii ayaa loo wacay waxaana lagu dhahay arintaas ayaa jirto waxaan doonaynaa inaad khibradaada iyo aqoontaada nagu biirisid arintan kiiskaas aan soo gabagabayno ninkii uu yimaaday markuu yimi kadib wuu la fariistay arintii ayaa loo sheegay si wax u dhaceen gabadha guriga leh inay xaaladaas ku sugan tahay ninka shaqaalahana shaki laga qabo isla iyadana shaki laga qabo dadka guriga degnaa ay ka guurin aan meel lagu sheegin arintaa waxaa ka darnaa lahay gabadhii waxa laga soo wacay box ama sanduuqa oo telefoonada dawladda waxaana laga wacay boxkan anaga noo dhow xafiiska sirdoonka u dhow waxaana lagu dhahay waxaan ahay qofka gurigaas dilka ku geysan jiray waana lagu dhahay telefoonka markaan boxka baaritaan ku sameynayna wax fara ah ama raadraac waan ka weynay marka ninka khabiirka ahaa uu fikiray wuxuu dhahay aagagaas kaamirooyinka ku xirnaa oo dhan halay keeno iyo 24 saac ama saac daqiiqadii ugu dambeeyay muuqaalka ay duubeen bokoskaas qofka galay iyo qofka ka soo baxay in allay duubo allay tus ayaan doonay kaamirooyinkii ayaa loo keenay waxay duubeen oo dhan waxaa mucjiso ahayd in daqiiqadaas gudaheeda gabadha laga soo wacayay in bokoskaas uu mashquul ahaa dad fara badan oo ay isugu dawmarayeen ay wax ka garaacanayeen ama wax ka waacanayeen laakiin waxa laga shakiyay nin koofiyad xirnaa garan ama maxalle jaakad oo koofiyad leh oo wajiga iyo macal madaxa qari karta xirnaa ayaa laga shakiyay daqiiqadihii gabadha la soo wacay laakiin way ka horeysay oo asiga wuxuu baxay daqiiqada gabadha laga soo wacay ka hor ayuu baxay
halka nin ee laga shakin karo wuxuu ahaa ninkaas inta kale waxay ahaayeen dumar ama odayaal oo waayeel ah oo ayagana caadi loo arkay feeskooda oo aan isqarnay laakiin halka nin ay isqarnay ee xirnaa jaakada ee koofiyadana leh oo wajiga iyo macalmadaha qaran karto halkaasna ay laga shakiyay laakiin nasiib daro waxa isku hagaagi waayay isku toosi waayay daqiiqad gabadha la soo wacay iyo daqiiqad asuumay uu ka bax ee isku soo hagaagi waayay marka waxa la isku aadin waayay ninkan inuu shakiga uu raaco iyo in daqiiqadii gabadha la soo wacay in isku aadi waayaan ayaa meesha ka soo baxay arintii waxay noqotay arin lagu dawo wareero waayo kiiskan kiis laga aamusi kara maaha waayo kiis toddoba qofood lagu dilay oo haddana guri dhexdiis lagu aasay jaraa'idada waddanka oo dhan askartii booliskii ilaa iyo caalamka waxaa la hadalhayaa in kiiskaas dowladda maraykanka ay xalin la'dahay CID-dooda sirdoonadooda waxooda dhan inay wax tabar u laayihiin dilaayaashan ay meel ku sheegin soo qaban laayihiin dilaayaashan waxay ku fikireen inaan la soo qabanin waxaad ogaataa ama gaal ahaw ama muslim ahaw maalin umbad ku soo dhacaysaa gacanta haqdarada aad ka geysatay waad ku soo dhacaysaa laakiin ugu dambeyn ninkii oo khabiir ahaanta loo keenay arrintii wuxuu u waayay wadda uu u maro si kastoy noqoto si kasto u rogrogo arrintii waxay gaartay inay ku dul fikiraan ninkan bixitaankiisa halka nin ay ka shakisaan ninkaas u ahaa dadka kale waxay dad badan oo wajiyadooda si fiican loo arkeen way jireen laakiin ninka keli ee shakiga uu fuulay ninkaas ayuu ahaa ee wajigiisa qarinayay kaamirada iska qarinayay bokoskana galay kana soo baxay laakiin waxa isku toosila daqiiqadii uu ninkaas galay bokoska iyo daqiiqadii gabadha la soo wacay ayaa isku hagaagila marka ninka sirdoonka khabiirka ahaa wuxuu dhahay waqti halaysiyo arrintaana si kelinimo ah ayaan rabaa inaan u baaro wixii ka soo baxan aan la wadaago waxaan doonayaa daqiiqadahan iyo ninkan bixitaankiisa wax isku beegi waayay inaan ogaado ma ninkan baa dilaaga mise waa nin kale mise dadkan faraha badan ee anaga aan ka shakisana mid kamid ayaa dilaaga ah ayuu dhahay waxaa la balamay in isbuuc kadib isku soo noqdo arrintii nin walba si gooni u soo falanqeeyo si gooni u soo fikiro si gooni u soo baaro kadib nin walba fikradiisa isku keeno si arrintii gun loogu gaaro ama guul loogu gaaro dilaagan loo soo saaro gabadhaanna hadday dembiyeyla iyada ay tahay iyo haddii ay tahay uu yahay ninka shaqaalaha ah ama dadkii guriga ka baxay yihiin arrinta si loo baaro loo ogaado waxaa lagu ballamay isbuuc kadib ama wiig kadib in isku soo noqdo arrintii la baaro oo laisla falanqeeyo oo meel laisla dhigo isbuuc kadib ayaa lagu ballamay oo la rabaa in arrintii culays la saaro si loo ogaado qofka dilaaga rabta ah ee raba inuu gabadhan iyo ninka dambi dush ka saaro waa inuu qaybta saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu